febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku farxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukuumana ahaayeen dilkana maanta lagu wada furiyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cishaa dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay iyagoo ka yimi ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggeena dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya warbaahintu meesha may joogin lagu qisaasayay maxkamada Allah naxariistay maxaa cadeynaya baraha bulshada hadallo kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska Caysha mooyada Allah naxariistay bal maxaa cadeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga Ilyas ahaan in nimankii goobta la geeyay dilka lagu fiiyay ay yihiin nimankii Caysha Allah naxariistay nimankii Caysha dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhirama baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba adigu goobjoog ma ahayn meesha lagu dilay goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadaymo iyo hawl waxa jidhay in ay isaga iyo walaalkiisu la yiri DNA iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalaabo DNA isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA-gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa macaankiisii baa ku jira shahwadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta ma adiga fuliyay ehelkaaga qoyskaaga mise dawladda ayaa u bandhigtay nimankaas dawladda ayaa qisaasta annagaa fushanay dawladdu waxay tiri fushadaa la yiri sharciga islaam weeyaane annagaa fushanay waxay ugu dambeyn barnaamijkan iyo qaabka uu dhacay dhinaca dawladda iyo aragtida dareenkaaga ku aadan ugu dambeyn dareenkaygu aad iyo aad buu u fiican yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caasha Ilyas aadan ka galay waa la toogtay laba nin ninna waa dambeeyaa 10 cisho ayuu xirnaanaya haddii ay noqoto in ninkaasi ay laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go'aankeeda gaadho adiga Ilyas ahaan ma qorshuhu ma kugu jiraa ninkaas inaad cafisid haddii kiiskaas lagu helo oo aad magdhow ka qaadatid ama aad qisaasatid baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa laakiin 10 cisha loo dib waana xiran yahay fariin maxaa uga diraysaa guud ahaan dadka ku dhageysanaya oo telefishinada ku daawanaya adigoo si faahfaahsan uga hadlaya arrintan waxay ahayd arrin muxuu ahaye ummadda oo dhan ay sugaysay maantana aan filayno in ay noqon doonto lagu qanco aysan dhici doonin gabar dambe oo muxuu ahaye ay dhalinyarada ay fal noocaas kula kacaan marka guud ahaan adigoo soo xoorinaya Ilyas kaaga mahad celinaynaa bal guud ahaan dadka waxa u cabirtaa kiiskan sidoo ahaa iyo in maxaa laga baran karaa kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan waana la badbaadayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood